shacabkii imtixaanka la mariyey ee dhibaatada loo diray ee saddexda arrimood ee dowladda la rabay inay qabato ay dowladda federaalku u dirtay ee ay dhibaataysay ee imtixaamaadkii oo dhan ka soo baxay haddana maxay tahay sababta loo gacan bidixaynayo gacanta bidixda loogu hayo shacabka aan ka hadlayno waa shacabka gobollada SSC markii uu dagaalku bilowday oo maamulkii gooni goosadka ay argagixisada taageerayay iyo shacabku ay isfara saareen dowladda federaalku saddex arrimood ayay u dirtay saddexdii arrimoodna shacabka gobollada SSC way ka soo baxeen sidii la rabay dowladnimada ku habboonayd midnimada ummadda Soomaaliyeed ku habboonayd wadajirka ku habboonayd ugu macquulsanayd waqti aan weliba dheerayn ayay ku soo afjareen saddexdii arrimood ee dowladda federaalku ay u dirtay saddexdii arrimoodba markay shacabku ay keeneen ee la rabay dowladdu inay doorkeeda qaadato maadaama imtixaan maamul goboleedyada kale aysan marin la marsiiyey maamulka SSC oo saddexdiiba shacabku ay sidii la rabay ugu fiicnay ay uga soo baxeen dowladdii dib unbay u gurasho unbay samaysay iyo cadaalad darro maxay tahay sababta loo gacan bidixaynaya shacabka gobollada SSC maxay tahay sababta loo gacan bidixaynaya maamulka Khaatumo State miyaysan maamul ahayn Hirshabeelle waa laba gobol meesha la yiraahdo Galmudug waa laba gobol Koonfur Galbeed waa laba gobol iyo bar maamuladii oo dhan waxa weeye markii Puntland iyo Jubbaland laga reebo waa laba gobol weeye ayagoo laba gobol ay haddana xuquuqdoodii helaan maamulka SSC na waa saddex gobol oo dhammaystiran oo weliba dhulku intuu leeyahay aad wada aragteen maxay tahay sababta loo gacan bidixaynayo bal intayna dul istaagin wax yar horta kaliya aan wada dhageysano shacabka SSC Khaatumo waxa ay qabsadeen iyo xaaladday ku qabsadeen waa la wada socdaa halka maamulada qaar in la dhiso lacag lagu bixiyay oo waqti lagu bixiyay oo madaxda dowladda federaalku ay muddo fadhiday haddana waxaa waqti loogu bixiyay in dhulkooda gacanta loo geliyo ilaa haddana dagaal iyo wax walba la barbar taagay laakiin shacabka SSC waxa lagu yiri idinku horta wax dhista hadda kuwaas la mid ahay in wax loo dhisay ahay in kharash lagu bixiyay in madaxdu timaadday in mashruuca gooni goosadka si xooggan looga hortagay taa bedelkeeda waa lagu cayiliyay waa lagu xoojiyay laakiin haddana shacabka SSC Khaatumo go'aan bay gaareen imtixaanka iyo assignmentigaas ay qaateen iyaga laascaanood oo lagu dhex jiro oo lagu hareeraysan yahay fadhiistay go'aan gaaray oo waxay idinku go'aan gaara oo maamul samaystay way gaareen kiibaa lagula dagaalamay looguma heelin xaqiiqada taalawi waxaa la yiri bal dhulkiina xoreysta oo imtixaan kale oo la mariyay shacabka SSC tiina waa ka jawaabeen markii arkeen inaan ciidano u maqneen ceelna u qodnay dowladdii federaalka ee la rabay inay ka shaqayso midnimada wadajirka ummadda Soomaaliyeed iyadii ayaa hagardaaminaysa oo dadkii kala diraysa iyadii ayaa maamuladii kala diraysa madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagii lahaa qabyo ninkeeda dhamaystira isagii lahaa ummadda Soomaaliyeed muddo yar ban meel ku gaarsiin isagii lahaa waxa weeye wadajirka ummadda Soomaaliyeed baan ka shaqeyno oday baan hoowaye arag baan ahay ummadda Soomaaliyeed midnimadeeda ayaan ka shaqeynaya isagii ayaa gacmihiisa ku sii kala geynaya maxaa daliil u ah maanta magaalada Muqdisho waxa ka socda ma wax kala geyn ummadda Soomaaliyeed ba mise wax isku keenaya maamul goboleedyo ayaa sii baxaya ay waagi horena waxa la raadinayay Somaliland waa arinta labaad maamulka SSC Khaatumo markay dagaalka shacabka iyo maamulkii waxa weeye argagixisada uu dagaalku u bilowday Xasan Sheekh Maxamuud saddex arrimood buu u diray shacabkii gobollada SSC saddexdaasi arrimood ee xujaadad ka soo baxdaan xuquuqdiina iyo waxa weeye maamul goboleedkiina iyo waxay sida maamul goboleedyada kale ay qaadanayaan ayaad horay ka helaysaan laakiin saddexda xujo waa inaad ka soo baxdaan buu yiri waa midda koobaad wuxuu yiri cadawga horta iska xoreeya dhulkiina xoreysta oo waa kee dhulka anagu waa Sool Sanaag
iyo cayn saddexdaasi gobol xoraysta oo ka xoraysta maamulkan waxaa weeye Soomaali diidka midnimo diidka argagixisada taageera iska xoreeya dagaal bay galeen way iska xoreeyeen way iska sifeeyeen dhulkoodii gacantay ku soo dhigeen arinta labaad ee u diray waxay ahayd dhulkiini ma xoraysateen haa maamul dhista aslo gashihin maamul aslo gashihin dhista waa la fadhiistay simadii dhaqanka waa la isku imaaday maamulkii baa la dhistay maamulkii ayaa la dhistay wuxuu yidhi dhulbaante iyo SSC ba dadka degan ma mid ma tahdiine waxa weeye idinku heshiiya oo dadkiina mideeya oo maamulkiina waxa weeye dhaqaajiya oo shaqada hore u dhaqaajiya oo waxa weeye markaad shaqada dhaqaajisaan dowladda federaalka doorkeeda qaadan waa la dhaqaajiyay intiiba waa la sameeyay xujooyinkii noocaas ahaa ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu SSC u diray intaba way ka soo baxeen oo waliba waxaa sii dheer dhaqaalihiina idinku waxa weeye isku xoreeya oo dhaqaalihiina isticmaala oo hub ku gata oo waxa weeye iskaga celiya nimanka intiiba waa la sameeyey intiiba way sameeyeen markay intaas sameeyeen dhulkoodina qabsadeen ciidan dhisteen maamulkii dhisteen 2 sano ku meelgaara la dhistay waa kii firdhiyo loo yeedhay ee muqdisho uu tagay casimaadda uu ka helay la soo dhaweeyey waa la soo dhaweeyey madaxweynaha way wada kulmeen wixii oo dhan waa lala kulmay ra'iisul wasaaraha waa lala kulmay waxaa la yidhi hadda ka bilaabato qoondada maamul goboleedyadu ay qaataan oo kale idinkana layna siinayaa dhaqaalaha beesha caalamka ay bixiso hadday noqoto deeqda waxbarasho iyo hadday noqoto mid caafimaad iyo hadday noqoto mid horumarineed iyo hadday noqoto kab kale oo dhaqaalaba waa layna siinayaaye nabadda adkeeya oo nimankaas yaysan dib saddexdaa gobol u qabsanin Soomaali diidka ee gacanta ku dhigo adkeeya xuduudihiina adkaysta waayahay mudane madaxweyne mudane ra'iisul wasaare lido waxa weeye go'aankaas la kala qaatay xuduudahooda ay adkaysteen dhulkooda ayaa gacanta ku haya waa ilaahay mahad ilaahay baa mahad iskale oo iyagu waxa weeye kumaysan hadday balaqaad samayn lahayn iyo hadday sameeyaanba dhulka dadkii lahaabaa gacanta ku dhigo iyadu shalayta lagama qabo laakiin waa madaxdii dowladda ee ballantay qaadeen in ay ka soo baxaan soomayn ahayn ilaa nimankan SSC Soomaalinimada iyaga uma daba fadhiyaan inay maamul goboleed noqdaan iyaga uma daba fadhiyaan laakiin waxay u daba fadhiyaan oo gacanta loogu hayaa deeqihii oo dhan baa iyaga soo mariyo waa madaxdii federaalka weeye maamul goboleedkay rabaanna way ka goosan karaan maamul goboleedkay rabaanna way siin karaan maxay tahay sababta marka loo gacan bidixaynayo ee xuquuqdii ay lahaayeen ee xaqa ay u lahaayeen madaxda dowladdu ay u siin laadeen u gacan bidixaynayaan maalin dhaweyd waxaa soo baxday balaayiin dollar oo World Bank uu bixinayay SSC waa laga reebay waxaa soo baxday oo kale deeq waxbarasho oo 60 milyan oo dollar ay ku kacayso maamul goboleedyadii kala loo qaybiyay Somaliland intay lacagaysteen oo intoodii lacag ahaan uga qaateen ayay hub ku soo gateen hubkii dadka lagu leeyahay shacabka waxa weeye lagu leeyahay dhulka loo ayaa lagu sii gadanaya Somaliland oo laba gobol bas ku harsan laba gobol ah musabbixi maamulkiisa laba gobol kaliya meel lagu soo doortay iyo maamul meel lagu soo dhistay iyo jahay u socdaan dowladda federaalku aysan waxa weeye waxba ka ogeyn oo argagixisada waxay helaan inta isticmaal in argagixisada shabaabka Soomaali koonfurta Soomaaliya dhibaataynaya siiya ayaa lacagtii loo fasaxay waxa weeye qoondadoodii maxaa SSC loogu fasaxi waay maxay tahay waxa weeye dulmiga inta leeg maxay tahay cadaalad darrada ma sidan ay rabaan madaxda dowladda federaalku in lagu wada joogo oo Soomaali lagu wada ahaado oo dowladda lagu taageero oo ma dowlad ahaan loogu aqoonsado oo madaxda qaranka inay loogu aqoonsado ma sidan ay rabaan waxaan leenahay madaxda dowladda Xasan Sheekh Maxamuud oo ugu horeeyo war maamul goboleedyada xuquuqdooda si siman u siiya galmudugta aad siinayso ee ciidankii dowladda aad isku geysay ee dhaqaalaha badan ugu badan aad sax ku sii leedahay ummadda Soomaaliyeed way ku aragtaa laba gobol oo kaliya weeye hirshabeelladan aad ciidankii iyo Soomaaliyeed oo dhan isku geysay laba gobol oo kaliya weeye sida aad gacan bidixaynaysana 3 gobol weeye waxayna keeneen guul aysan dowladda federaalku aysan weligeed inay gaadhay ay ku adkaan lahayd 16 sano calanka buluuga ee Soomaaliyeed meel uu mamnuuc ka ahaa oo qofka koonfurta ka imaada lagu dilahayay oo maatida laga soo qaxinayay ayay nimanka calankii Soomaaliya ka taageen waxa la raadinayo hadday wada jir tahay oo midnimo tahay
oo Soomaali inay mid ahaato tahay oo la raadinayo waxa weeye Soomaaliya oo inay dawladda federaalka ay xukunta la raadinayo nimankaas ayaa u shahiiday u dhamaaday u baaba'ay u dhaawacmay hantidoodii oo dhan geliyay haddana waa la gacan bidixaynayaan waxaan leenahay madaxda dawladda SSC Khaatumo qoondada ay leedahay gacan bidixaynta ka daayay ee sidooda ha loo siiyo waa maamul goboleedyada kaluu la mid yahay waa dhul Soomaaliyeed dadka jooga waa dad midnimada ummadda Soomaaliyeed u dagaalamay waa dad dhibaato badan ay soo gaadhay ma gayaan gacan bidixaynta iyo xaq darrada aad ku samaynaysaan ilaahayna wuu inagula xisaabtamayaa war ilaahay baa inagu dhaariyay dadka dhibaatada ay gaadhay yaa ayaga uga nugul in waxbarasho ay helaan war iyaga yaa uga nugul inay caafimaad helaan war iyaga yaa uga tabaryaro uga nugul in dhaqaale la hormar wadda loo sameeyo waxa weeye World Bankigu uu tago oo horumarina uu sameeyo maxaa looga gacan bidixaynayaa maxaa loo qabyaaladaynayaa madaxda dawladdu yay ka cabsanaysaa waa 3 gobol waa maamul goboleed dadkii deegaanka dhistay maamulku waa dhisan yahay madaxweyne leeyihiin golo baarlamaan bay leeyihiin guddi fulin bay waxay leeyihiin golo wasiir bay leeyihiin maamulkoodu waa dhameystiraya dawladdu way ku qanacday sida wax u dhisteen midnimadooda iyo sida ay wada jirkooda way ku qanacday way soo dhaweeyeen maxaa haddana laga gacan bidixaynaya maxaa waxooda loo duudsinayaa maxay tahay sababta maxaa laga helayaa haddii la qabyaaladeeyo xataa xasan sheekh maxamuud qabyaaladeeyo muxuu ka faa'iidayaa waa maamul goboleede dawladda Itoobiya iyo wadan walba calaqaad la sameeysanayaan waa un dhul ka maqan isaga noqonay dhul isaga ka maqan waxaan leenahay mudane madaxweyne hadda aabad waxa doontaba aad haatide adiga madaxweyne kursiga ku fadhiya kada gacan bidixaynta iyo qabyaaladda iyo waxa weeye xaq ay leeyihiin SSC ee aad wareejinayso kada xaqooda si waa ummad Soomaaliyeed waa maamul goboleed adiga aqoonsaday adiga waxa weeye maamul dhista yiri adaa shacabka yiri la dagaalama nimankaas oo iska bixiya adaa yiri dhulkiina xoreysa waxa weeye adaa casuumay madaxweynihii waxa weeye waa maamul goboleedyada kale oo lamida waxay adiga ka sameeyeen oo gaar ma jira dhul Soomaaliyeed bay soo celiyeen shaqo adiga aad lahayd bay ka fududeeyeen oo dadka shacabka ay ka fududeeyeen waad ogsoon tahay maamul goboleedyada kale markii la dhisayay dhibaatada loo maray waad ogtiin dhibinteedan baa loo maray markii la dhisayay koonfur galbeed dhibaataynteedan baa loo maray Hirshabelle markii la dhisayay dhibaataynteedan baa loo maray galmudug markii la dhisayay dhibaataynteedan madaxda qaranka say u joogeen bilay ku maqnaayeen maamul goboleed walba bilo arba lacagtii ugu badnayd malaayiin dollar baa lagu bixiyay ciidankii ugu badnaa baa la siiyay hubkii ugu badnaa baa lagu bixiyay madaxtooyaha loo dhisay dhaqaalaha lagu bixiyay maxay kuwan kaga duwan yihiin kuwan iyaga dagaalamay hub kaamay qaadanin dhaqaale kaamay qaadanin waxba kuma weydiisanin dhulkooda iyaga xoreystay iyaga haddana maamul dhisto kaalay nool dhismaamul noo dhismay dhihin oo kumaysa dhihin ayaga ku dhaawacmay ayaga ku dhintay waxba kuma aada tarin haddana sidaasay raalli ku yihiin oo maamul goboleed waxa weeye kamida maamul goboleed inay ahaadaan oo adiga ay ku hoos joogaan oo waxa weeye ay dawladda federaalka ka tirsanaadaan bay raalli ku yihiin maxaad marka u gacan bidixayni wax ay xaq idinku lahaayeen oo madaxda dawladda ay xaq ugu lahaayeen oo dawladda federaalka ay xaq ugu lahaayeen ayay gacmahooda ku qabteen maxaad u gacan bidixaynaysaan maxaa loo gacan bidixaynayaa maxaa loo dulminayaa waxaan leeyahay madaxweyne dulmigaas ilaahay baa kugula xisaabtami doono gacan bidixaynta ilaahay baa kugula xisaabtami doono cadaalad darradaas ilaahay baa kugula xisaabtami doono haddaadan raaligelin ka bixinin xaqa ay leeyihiin SSC aadan u fasixin mid waxbarasho mid horumarineed iyo mid lacageed oo maamul goboleedyada lacagaha kabka ee ay qaataan ee lacagaha beesha caalamka ka soo dhacdaba SSCna waxaan leeyahay nabadiina adkaysta midnimadiina adkaysta wadajirkiina adkaysta hore idinku wax weeye isku tashi sameeya horay u sii socda haddii dawladda federaalku ay isgaran weydo oy ka soo laaban weydo meeshaad rabtaan calaqaad la samaysta idinku waxa weeye dhaqaalaha isku waxa weeye maamulkeena ku garab istaaga canshuurta bixiya waxa weeye kaaba dhaqaala samaysta isku tashada waagi horeba 2 sanaad hadda waxa weeye yaa jirtaan oo aad dagaal ku soo jirteen hubka casriga waxaad SLM ka qaadateen mooyeen inta kale waad soo gadateen dhaqaaliin aad kala baxdeen ciidankiina waxa saada waxa mishaara waxa dhaqaalaha wixii ordaya shidaala kuwa dhaawacyada dilay dibadba la geeyay dhaqaale idinkaas ka ururiseen baad ku samaysateen haddana waa ilaahay baa idin garab istaagay horay u socdo ha u joojinina dawladda federaalkana
waxaan rajaynayaa inay baaqa qaadan doonto hadday qaadan weydo oo baaqa madaxda SSC ka soo baxaysa iyo bulshada Soomaaliyeed iyo annagaba ka soo baxaysa ay qaadan weydo isku tashigiina ku socda insha Allah ta'ala ilaahay baa ina garab istaagi meel ina filaynin bay waxa way garab istaag aad ka helaysaan hore u socda insha Allah ta'ala guuliyo gobonimo ayaan leenahay SSC